madaxweynihii hore ee Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee udub mudane Daahir Rayaale ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay maalinta uu qabsoomi doono shirweynaha golaha dhexe ee xisbiga udub. Daahir Rayaale oo gurigiisa shir jaraa'id ku qabtay ayaa sheegay uguna baaqay bahweynta xisbiga udub in 25 bishan ay dukumentiyada soo gudbiyaan xisbigaasi uu qabsoomi doono. Allahi barakaatu. Maanta hadalkaygan waxa weeyaan iclaan aan bixinayo 25ka wandakii qabanay in golihii dhexe xisbiga oo shiro 25ka waxaan u sheegayaa bahweynta xisbiga udub inay golihii dhexe dokumentigii xafiiska xisbiga ka soo raadsadaan 27kana 8 subaxnimo haddii Ilaahay ilaahdo shirkii golaha dhexe xisbiga udub wuxuu ka furmayaa hotelka ambassador. waxaan ku wargelinayaa bahweynta xisbiga udub golaha dhexe dadkii ahaa heer gobol dhammaantood inay ka soo qayb galaan shirka iyadoo shir kale uu noqon doono ku xisbiga udub lagu dardargeliyo inuu si toosa waqtiga yar haray oo kaga qayb galo doorashada deegaanka xisbigan oo ahaa kii hooyada iyo aabaha dimuqraadiga Soomaaliland ka hirgeliyay dalkan taariikh kule ummadda waxaan leeyahay dhammaan shacbiga reer Soomaaliland taageeraday udub hayeen inay muujiyaan haddii Ilaahay ilaahdo iclaanka kooban baan maanta idinku yeeray aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. horta marka ugu horeysa 3 xisbi dalka ka jiray maanta 9 urur baa lagu tartamayaa 6 urur ee farcamay 3 xisbi hore oo bay ka farcameen markaan runta idin sheego udub inta saaxiibo mabda'a ku soo hadhay ayaa shirkan loo qabanaya haddii Ilaahay ilaahdo cidda udub aamintay ee mabda'iyan awal loo aaminsanay ee golihiisa dhexe haddii ashkhaas ka tagtayna xisbiyada de ashkhaas way ka tagaan qaar kale oo ku soo biirayna way jirto haddii Ilaahay ilaahdo. Daahir Rayaale waxaa jira warar sheegaya in gudoomiye ku-xigeenka ummadda way iska casilay gudoomiye ku-xigeenimada xisbiga udub kuna biirayo golaha guurtida Soomaaliland sidoo aragtaadaas de go'aan waxaan islaahay inuu go'aan fiican qaatay maadaama raggii uu kaxeeyo dhanba ay ka tageen go'aan fiican buu qaatay baan anigu oran karaa golaha guurtigana isaguna uu ku jiraa anna waan ku jiraa golaha guurtigu waayo madaxweyne iyo ku-xigeenba xaq bay u leeyihiin markasta waan ku ammaanayaa go'aanka uu qaato wax eebahoon anigu hayaa ma jiro. shirkan jaraa'id ee uu maanta ku qabtay iyo baaqan uu madaxweynihii hore ee Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee udub mudane Daahir Rayaale ayaa ku soo beegmaya iyada oo gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga udub Axmed Yuusuf Yaasiin wararka qaar ay sheegayaan inuu iscasilay.